tallaabooyinka aad u baahan tahay marka aad rabto inaad wax akhrisato ilaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu barto sida wax loo barto. waxaan ku bilaabeynaa in qof kasta oo annaga naga mid ah oo adduunyadan jooga wuxuu u baahan yahay inuu qof kale ka duwanaado jecel yahay in meesha uu joogo inuu ugu fiicnaado waa jecel yahay qof kasta in aad dadka ka duwanaato oo aad fariid noqoto macnaheedu maaha inaad buundooyin badan keento maaha kaliya buundo kaliya kuma xirna imtixaanka iyo in maaragtay aad qof caan ah aad noqoto muhiim ah waxaa wanaagsan inaad muhiim tahay mise waxaa muhiima inaad wanaagsan tahay haddaad wanaagsanaato waxa kale waa iska imaanayaan meeqa qofaa caan ahoo laakiin aan wax fiican ku caan bixin qof intuu dad wax la wadaagay waxbarasho helay jaaniski geed inta la waraabiyey bixi waayey baadhi badanta waa laga yaabaa moogtahay geed soo loo kala duwan yahay u kala qaadana marka geed waraabi waa bixi waayey xoolo ama waxyaalo kale iyo wax sii waa soo weynaan waayeen oo waxaa lagu yaqaanay hadduu jidiin wax laqo in jirka uu wariyo jidiinka wax waa laqayaa jirkana marka jidiin waxbarasho kugu socda waa inuu jirkaagu ama maskaxdaadu warisaa soo saas maaha hadduu cunto ahayd yaa hadduu jidiin wax laqo jirkaa wariya haddii aad waxbarasho qaadato waa inay muuqataa marka waa wax ilaahay bini aadamka dhan u kala duwan qofka jaamacad dhigta madrasa dhigta iskool dhigta macahad dhigta kulli waa u baahan yahay qofka inuu qaato waxyaalahaas oo dhan marka qof kasta suu u gaaro wuxuu ku dadaalayaa waxa anfacaya wixii aan anfacayna waa iska dhaafaya saad fariid u noqoto waxbarashada xirfadaheeda aad si meeshii la rabay oo haddii meesha ugu dhow inaad ku heli karto oo lagu yidhaahdo dhegtaadii bidix meeday aawa dhegtaadii bidix haddaad saan tiraahdo waxay ila tahay dariiqa ka dhow waa adoo saan yidhaahda saasas ma saanna waa jirtaa saanna waa jirtaa marka meesha ugu dhow aan ka soo qabanno dariiqa ugu dhow aan wax ku barto dariiqa ugu dhow aan meel ku gaari karo dariiqa ugu dhow aan maaragtay ku gaaro oo ugu saxsan haddana inaan noqon karo dariiqyadaas haddaan qofku uusan wax yar u sabrin oo waxbarasho ah noloshu wuu weynaan doonaa xilli wuxuu noqon doonaa uusan uu aada u dhibtoon doono waa aragtaa baan u malaynayaa qofka gaari gacanka wada ee fuustada wada iyo qofka loo wado yaa dheereeya kan wadaa dheereeya oo alaab culus wada soomaa saas kii kalaaba war iikaada uga ordayaa ama qofka alaabta wada haweenta marogsinta alaabta kugu wada way kaa dheeraysaa dan baa markaa haysa haddii hadda qofku uu wax baran waayo oo meeshii la rabo berri wuu dheereen doonaa asoo dhididaya soomaa saas asoo dhididaya oo ka dhib badan sidii ayuu aada u dheerayn doonaa laakiin waxaa roon maanta inuu dhaqsado oo uu hawshiisa u kasoo dhalaalo maanta laga rabaa marka waxbarashadu soo kuma fiicna marka inta aad idinka waktiga aad haysataan fursada hadda aad haysato waxaad u haysaa kansho waxaad u haysaa fursad waxaad u haysaa shiidaad soomaalta inta waa u haysaa af soomaali macnaha wakti u haysaa maanta aad geliso waxbarashada xataa haddii qofkii sanadka uu rabay uu ku dhaco sanad kale uu ku dhaco fashilaad ma aha qofku waxaa fashilaada inuu ka tago soo saas maaha waxbarasho inaad iska dhaafta fashilaad ah laba yaa fiican waxba iyo wax un lagu daro lagu daray wax weyn noqotaa laakiin waxba lagu daray waxba soo saas maaha laakiin in yar ku dar in yar kale ku dar waxba dhib ma leh fashalku ma aha in aad hadafkaadi gaari weysay fashalku waxaa weeye inaadan hadaf lahayn wax hadafa malihi taasaa fashila laakiin fashalaadu ma aha wixii aan rabay waa gaari waay waxaan rabay waa gaari doontaa waxba dhib ma leh laysa alfashal anlaa tabluqa ahdaafak bal ilfashalu an laysa laka hadafun fi lxayaa fashal waxaa ah inaadan waxba qof ujeeddo leh waa gaaraya maalin un waa gaaraya hadduu dhibtoodo gaaraya